السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيرت شرفت له كل وناسن سودواده حبين وعن وناسن وكود اللوليو أو معنيك حرمة إيقاعة الصومالية وحين لنا هاي لما مد الصوماليات حنبليو ما دام أين كنا علون إنه نبتقلي برارة أنا كسر قد من حلقة كميستها إنجليز كتاليانية فرنسيسكا إنتبه يبرتغيس كسي وري markii intaasi aan ka soo ka nimaadno maanta waxay idin wadnaa xog ku saabsan qaabka tuugada ay mataqaanaa ay wax u dhacaan waliba magaalada Muqdisho, Nairobi, South Africa intaba meesha noqon lahayd meel kasta oo Soomaalida ay joogto iyo hababka ay adeegsadaan iyo xilliyada ay fursad mataqaanaa ay u helaan balse intaas oo waxa ka horeeyo hadii aad ku cusubtay channelka subscribe saaro hadii aad nala joogteen waad ku mahadsantahay sida wanaagsan ee markasta aad nala socoto balse hal codsi buu ahaa oo kaasi inaan sameeyno inaan sii shargarisan like-tan asartan muuqaalka haddii intaas aan uga imaano waxaan arkaynay aan baraha bulshada xalay ilaa maanta ku jiray wiilal yaryar kuwaasi oo dhac u geysanayo dukaan weyn oo lagu gado taleefanada kuwada ugu qaalisan waa la ogaa waan arkaynay marka dukaankii bay mataqaana iska soo galeen iyagoo biskoorad wato weliba raggaasi biskoorada wato waxaad garan kartaa in aysan gaaja isa u geyn lacag doon ee mataqaana ay ahaayeen dukaankii soo galeen hal wiil baa dukaanka loogu imaaday kadib biskoorada wax laga saaray waa la jiifiyay kadibna waxay ka qaateen wax alli iyo wixii ay gacanta ay ku qabsan kareen waan iska hulaleen marka taasi oo wali sabab u ah shaqo la'aanta baan ee inta badan dhalinyarada mataqaana ay reer Muqdisho ama dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mataqaana soo wajahaday kamid tahay in ay ku kacaan waxyaabo mataqaana burcad badeed waxyaalo burcad tuugo iyo wixii la mid ah adii akhlaaq xumo lagu tilmaamo iyo mataqaana ay qayb ka tahay marka adiga laftaada marka aad fikirto marka qaar waad yaabi kartaa dukaanka intaas la eg in arkaynay baaxadiisa alaabta taale qaaligeeda la wada arkayay in haddana uu joogay hal inan oo kaliya bal adiga laftaada qiyaas marka hatta haddii ay laba ahaan lahaayeen oo tuugada usoo geli lahaayeen kaliya dukaanka waxa ku xirnaa wuxuu ahaa waa CC camera ama kaamirooyinka qarsoon ku xirnaa kuwaasi oo duway dhammaan ficilada iyo wixii meesha ka dhacay marka waxa kaliya ka maqnaa wuxuu ahaa labadaas shay oo kala ah in maadaama dukaankaasi uu dukaan weyn u yahay alaab qaali lagu gadayo in shaqaalaha la kordhiyo oo dhowr qof lagu daro haddaan la awoodin oo muxuu ahaa shaqaalaha la bixin karin in la sameeyo hal qof oo mataqaanay control room ti loo sameeyo ilaalinayo kaamirada iyada iyo waxa ay dubaysi dhaqdhaqaaqeeda kaasi oo suurtagalna u ah marka iyada in uu qofki markii uu arko nimankan ay wiilka episode ay ku qabteen in uu xarunta booliska u dhow ama uu waco mulkiilaha ama uu waco dadka dariskiisa ah si ay mataqaana u soo gurmadaan raggaana mataqaana gacanta loogu dhigo intii midna ma dhicin haddii inta aysan dhicin waxa kale oo ayadana mataqaana la sameyn karin ama la sameeyaa in taleefanka mataqaana aad ku xirato muxuu ahaa kaamirada aad kala socoto halkaasi marka aad ka aragtaan haddii aad ka maqantahay adiga dukaanka aad joogin marka ayada aad wacata dad marka ayadana mataqaana si degdeg mataqaana lagu qabto intii mataqaana ma dhicin kow lama sameyn qol u gooni ah oo lagu control muxuu ahaa kaamirada lama sameyn taleefanka lagama soconin inta iska soo galeen nimankii bisoorad ku qabteen bisi xaraga leh iyagoo iska dhaashoon iska baxeen qurux badan oo moodo inaysan waxba dhicin waxba sameynin iyo mataqaana ay tageen waa waxyaabaha nasiib darrada ee inta badan mataqaana ay haysta ay mataqaana ay kamid tahay marka mana aha xaqiiqatan dhaci ugu horeeyay ee Zobe laga sameeyo ama laga sameeyo magaalada Muqdisho meel badan oo kamid ah dhulka Soomaalida ay joogto yaa mataqaana laga sameeyaa waliba arrimahan inta badan waxay aad mataqaana ugu badnaayeen South Africa oo Soomaalidu in badan dhibaato loo geysan jiray markay arkeen xadka dhibaatada loo geysanay inta in la eg tahay ay sameeyeen markii dambe in ay kaamirooyin ay ku xiraan muxuu dukaamaha inay kala socdaan dhaqdhaqaaqa iyo dadka mataqaana ay tuugada ah marka ay soo weerarayaan wayba taasoo wax badan uga suurta gashay inkastoo xabacsanaan badan dhanka lafteeda ay ka jirtay oo ah dhanka booliska inkastoo booliska South Africa asaga iska dhib badnaa oo iyaga laftooda booliska iyo tuugadu aad mooday inay wada shaqeyn marka waliba waxaad garan kartaa wada shaqeynta ay leeyihiin yaa waxay ku tusinaysaa in markii tuugadii ay ku soo dhacdo oo muxuu ahaa qof banaanka joogo ama meel kale joogo uu waco oo booliska ay imaadaan imaanshahooda waxay ku imaanayaan marka iyada inay hoon soo yeeriyaan way igole ay soo baxayaan qofkii booliska marka qofkii tuugaha xaggaas iska istaagay banaanka bisooda meel buu iska geenaya
maba haba dambiilihii iyo kii wax sameeyey markii tii ay dhacdo marka booliskii adigii laftaadii markuu handaday marka adigu kusoo geliyay dukaanka adigu baari adigu bisoorad kaa baari qayli marka rafaadkaas baa mataqanaya Soomaalidu yaa mataqanaya la marin jiray haddii aan kasoo tagno xaafadda Islii maalin dhaweyd lafteeda waan ka hadalnay iyada lafteeda mataqana dhac fara badan oo Soomaalida loo geysanay yaa mataqanaya jiray marka dhacaas isagana fiiri in yar oo lacagahaas iyaga farada badan lagu badbaadin karay yaa mataqanaya la sameeyeen maalin dhaw u dambeeyeen baa wuxuu soo qaatay lacag 2 milyan uu ku soo qaatay mooto markaasuu soo dhaxkay magaalada markii uu bangiga ka soo qaadayna dad baa la socday oo mataqana ilaalsanay oo la socday xaaladiisa markuu soo dhaqaaqay mootka la soo daba dhigay waa la soo daba orday halkii uu ku dagay markuu u dagay yaa bisood lagu qabtay oo la yirkeen waxa ahayso fiiri lacagta iyada ee xataa qofkaas miyuu awoodi waa inuu transfer ku dhaho bangi kale uu ku wareejiyo lacagtaasi miyuu awoodi markii uu qaaday lacag intaas la eg in body care askari mataqana intuu qaata oo mataqana iska sii lacag dowladda ogashahay in meesha aad doonto aad geysato lacagtadan amaan iyo safe ay kugu tagto lama sameynayo balse waxaa la sameynayaa qaraska tuurimo oo ah way ku badbaadi oo waad geyn kartaa maanta aad geysay beri waad geysay berida waxaad la kulmay ma garanaysid marka adigii baa mataqana gacantaada mataqana isku dirayo marka waxyaabaha Soomaalidu inta badan ay sameeyaan ee qaraska tuurnimada iyo mataqana qayb iyo arrintan iyada mataqana ka tahay marka waxaan siinayaa tala guud dadka dukaamaha iska leh iyo guud ahaan dhalinyarada shaqalaanta iyo inta sameynay ficilada tuuganimada iyo burcadda intaba waxaan siinayaa marka u horeyso dadka beecsharada iska leh iyo dukaamaha marka u hore in mataqana markasta ay ku dadaalaan amaankooda iyo in mataqana hantidooda qaab kasta oo ku badbaadi karta ay sameeyaan ee qaaska turmada ay iska ilaaliyaan mid kalena waxaan kula dardaarmayaa in dhalinyarada inta ay shaqaaleyn karaan in ay shaqaaleeyaan gumaysigan ay ka daayaan dadka Soomaaliya inta badan markii qofka uu in yar oo hantee uu helo inta badan wuxuu xoog saari dadka u shaqeynay inuu gumaysto soo asaga doon inuu ka yeelo si asaga mataqana wixii asaga la qurux badan kaliya in la sameeyo in uu doono taasina mataqana ma anfacayso waayo dhalinyar badan oo waxa arkaysaa shaqaale in haddana ayaga iyo ninkii u shaqeynayeen cadownimada dhaxta lama ka aragto wadiyaabaysa waa Israa'iil Falastiin aad bay u kala fog yihiin maxaa yeelay isaga markasta wuxuu ku cadaadinayaa sida asaga uu rabo in mataqana uu sameeyo wuxuu ku tuhmayaa markaas inay sameeyaan muxuu dhac wuxuu ku tuhmayaa markaas in mataqana ay darri baak ay sameeyaan hatta kuwa qaar intay ku xirteen kaamirooyin iyagoo arkayo waxa meesha ka jiro iyo haddana markasta tuhun iyo baakiyuusa ka dhamaanaynin iyo shaki taasi oo mataqana marka kala fogeysay in dadkii hantida lahaa iyo dadkii mataqana shaqaalaha ahaa in ay aad u kala fogaadaan waa dhibaatooyinka inta badan jiro iyo kamid tahay oo xataa hadii dukaanka asaga la soo weeraro wiilkan asaga ee maanta naftiisa uu huri lahaa uusan sameynaynin maxaa yeelay diimeel lagu cadibay habeenii maalin lagu hanjabayay oo dhibaato loo geysanay ma uu difaaci karo marka hadii laakiin uu saaxiib la ahaan lahaa maxaanka u shaqeeyay iyo asaga ay saaxiib ahaan lahaayeen isaga laftiisa nafhurnimo sameyn lahaayo meesha ayadoo ku mintidi lahaa lacagtaasna uu badbaadin lahaa laakiin ma dhicin mid kale waxaan ka codsanayaa iyaga dhalinyarada in wax alli waxay shaqo ay raadin karaan in mataqana ay sameystaan oo iyaga u gooni ah hadii mataqana ay helayaan hadii ay heli karin deena iska dulqaataan intii mataqana Ilaahay faraj khayr qabo uga furayo daawadayaal intaasaan ku soo koobayaa barnaamijkan mid ka kulmay nabadgelyo